شركة نوعها شركة بترول هي أفري صدرات حكومة قالته أسوأ فرصة شرها أيوة نقول يتردى وحنا نقول يا شركة جدا بيجي دولتنا قالته مدة تدور سنة هاي يتردى الكيس وحنا هذه هذا فرحصنا ما أنت السؤال المال ولا أقسام ولا سؤال أدوكم متشارنا هاي دور الشركة أي مقابلني لو ورنا عسارنت هاي waxay lahayn hadii xukuumadda inay dhammaan hawlaha kharashkooda iyo maamulkooda iyo dawladda la furisay 90% waxay dhaqaalaha hadii ay 90% inay dawladda furisay hawsha waxa furiyay dhammaan dadkii shaqaynayay ee dawladda ka tirsanaa ilaa waashmaan إلى وزير إلى مدحوينه هاو لو قبطي أو عريس كذا كل عين تذكر شغال أيضا شقاية مفكر وزيره هذا ما ضحنا ضمان هاو طلب المدي والرسول تجي يشعل يروح عليك ها أي آدي يروح الجري إحنا بعضنا كنا قوي في دورشة المعمل هي بدية دورشة وحيرتها إنه يقول وين ما أنت أدوك وقرأيه أي أتاي سوماليلاند دولة يدل وينبه وحيوزي ما أنت بين الدولة هي برول با أوامر المسلمين قاعدنا هاي إيش حقام هاي بعد كتاجنا هذا كده وسلحنا يجي رحمتها وحن لا يهم ما هو حن قوة فرحنا هاي كنا هاي إن دور الشيء أي مقابل دور شوي كا يدور إن اعتراف سنين يدور يقدر دار ورينا هايو iyada oo ay nagu socdaan colaado fara badan oo la isu kaashaday dad la dagaalamaya qaranimada Soomaaliland waxaan ku hambalyeeyaa shacbiga Soomaaliland iyo xukuumaddanba iyo xisbiyada mucaaradka ahaaba inaynu ku guntanay inaynu qarannimadeena hore u marayno adduunkana ku qancino inaynu nahay dad dimuqraadiya oo iyagu dimuqraadiyada maamulanaya aan cid u tilmaamayn وطلعوا عن إله كرتيه إن الناس يسقطوا ونصدق يسوع معمولات الكيان دارشوا يمروا بيوم ترى يرضوا كلها لبعض توي كتيرون ما يسال يسال كاشلون والله حليل كره خطيتك أي سعر سماذا بتاعه حرافة الجندياشي هكذا أي كلاه هلين كدوا ذيني نور بيع هاين وحرافة وهوشة وزيرك بربهنت ويسوي أي أفهيان كي وزارة الدولة إلى قلب بدر هذا هالكم وحي كسب حي أي يوم مدرسة بديها حال قطب الدولة أنا كدرا حرتان كم بود وحوي معلومات من الميديا وده تذكر هذا أي تراريا أما أي بوك عيا وحيارة وحيارية كوشا بود إنه حلي ما أنت أدون كل مدومة شرايو وحوي تذكر السوشيال ميديا استعماله قارب ولم باكوجفاء وهو صح لما يقرأ وكبح وذو عن شيء وح التبريس وإيران ونقونين وحكي سور كذا هوش عن ودنا قرمسكا لما حزبية المعارضة أي محافظة وحناه فرض المعارض كأه واهشم دور الشر وارد الهمبريين وارد الهمبريين لنا قرر إنه بيصيروا متشدناي إذا كهذا الضمب أو معارض نما إيه ترحان هدي إذا بنانا برسمه كل ميرا وحناه والحديد والشر اللي الشر يدور هضمونها لو هرا موشة قرب بين إسنا ولي حرك بنا ورجلنا يا حين حرك ورجلنا مركل ورجلنا مد أيام برسوجينا سيدا مامك الدولة الغلو ده أمش ولا فرتم بحياة دولة ده أنا ولا بحرانية بقولك عشاء الرئيسة إن الإمك هذا لقاه قدرا أما سؤال الحياة هي أما في حماية كتب هذا وكم ممنوع هذا مرشحين تيني حزب جيلنا هاي وانا تاجرتين وادل هالشيء وكم هتتي وحكروا ضو درتها
inaan idinka imika wax xisbiyadaa imika la doorteen weli xilkii la wareegin lagu maago iyo aflagaado iyo wax naxri dadka dadweynaha kulmiye taageero taasi iskuma ogina daaya oo joojiya haddaa mucaaradnimo u baxdeen markaynu hawsha mucaaradka bilowno markaana mucaaradnimo asluub leh oo qaradhisan noqonan intaasaan ugu hoostoo qoday midii haw sheegaya oon ka codsanaya inaga aqbalaan aad iyo aad baa umahadsan tihiin khayr baynu isku ognahay qarankeenu wada shaqaynaynu isku ognahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu maanta waa arbaca oo bisha 12 ay tahay 2024 waxaa qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland ka qabsoomay kalfadhigii 134 ee golaha wasiirada oo uu hogaaminayay ama uu guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland Muuse Biixi Cabdi kalfadhigaas wuxuu ku saabsanaa wuxuu marka hore ahaa kalfadhi ugu dambeeyay ee xukuumaddani ay qabato ee golaha wasiirada ayuu noqon doonaa waxaana lagu diyaarinayay kow xil wareejintii oo noqon doonta mid ballaaran oo lagu wareejin doono xukuumadda cusub ee ay shacabka jamhuuriyadda somaliland doorteen waxaa kaloo u ahaa mahadnaq loo mahadnaqayay dhammaan dowladdii iyo ummaddii kale ee ballaarnayd ee dowladdan iyo xukuumadda soo dhistay iyo shacabka somaliland sidaa awadeed qodobka koowaad ee la isla kartay aadna looga dooday wuxuu ahaa maadaama ay qabsoontay 13 November doorasho isa saaran oo madaxtooyo iyo xisbiyaal oo aad ballaaran oo aad culus waxaa la isla soo qaaday iyadoo ay duruufaha lagu leehi jireen oo dagaalo ka dhaceen dhibaatooyin badan ay ka dhaceen inay xukuumaddu dhabarka u ridatay dhammaan wixii ku bixi lahaa kharash iyo ammaan iyo abaabul dhammaan inay xukuumaddu toortooda sidaa awadeed duruufaha iyo diyaargarowga iyo arooska iyo abaabulka ay xukuumaddu gashay waxaa looga jeeday oo ay ujeeddadu ahayd in ummadda reer somaliland qarannimadeeda lagu dhiso waxaa mudnaanta la siinayay qarandhis iyo in waddanka loo jiheeyo adkaynta dowladnimada iyo hiigsiga horumarkeena iyo aqoonsi raadiskeena taasaa wax kasta ka mudnayd cidda helaysa iyo ciddaan helayna taasay ka mudnayd xukuumaddu iyadoo dhibaatooyinkaasoo dhan ku jirta ay xoogga u saartay doorashada noocaas inuu hirgasho sidaa awadeed waxaa xukuumadda uu hogaamiyada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo kalfadhigeedii u dambeeyay maanta qabsatay ay mahadnaq ballaaran u jeedinaysaa taageerayaashii ballaarnaa ee labada jeer xisbul xaakimka doortay xisbiga kulmiye ee codkooda ku aaminay ee doortay ee ilaa xilligii xisbiga la aasaasayna barbar taagnaa aad iyo aad bay ugu mahadcelinaysaa xukuumaddu iyo golihiisa wasiirada waxay kaloo xukuumadda iyo golihiisa wasiiradu ay u mahadcelinayaan si ballaaran ugu mahadcelinayaan dhammaan shacabka reer somaliland ee 14 sannadood xisbiga kulmiye u doortay inuu adeego uu noqdo xisbiga adeega oo u seefgareeya shacabka reer somaliland oo masiirkoodii iyo ay ka talintoodiiba ku aamineen aad iyo aad ba shacabka reer somaliland aan ugu mahadcelinaynaa xukuumadda iyo madaxweyne iyo golaba inaan noo doorateen inaan idiin adeegno 14 sannadood haddaatii shacabka iyagii jamhuuriyadda somaliland duruufaha aan soo sheegnay iyo doorashooyinka aynu ka soo baxnay sida ummadda oo dhan ka markhaati kacayso waxay sare u qaadeen maqaamkii iyo karaamadii iyo sharaftii reer somaliland ay fagaarayaasha caalamka ay ku lahayd waana tacab culus ummadda reer somaliland gashay xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisuna ay ku hogaamiyeen sidaa la socota iyadoo duruufahaas jirto doorasho lagu jiro lacagta la bixinayo oo dhibaatooyin dagaal ay dalka ka dhaceen haddana miisaaniyadda qarankuna isma dhimin sideedii bay ahayd sarifka
iyo sixir barna dalkeena gabadha waxaa laga yaabaa 5% boqolkiiba 5 inay isku bedelayeen sarifka iyadoo jaararkeena ay mararka qaar boqolkiiba 5 isku bedelayeen ama boqolkiiba 8 ama boqolkiiba inay inagoo duruuftaa ku jirna ay halkaa ay hor joogday boqolkiiba 5 difference ama boqolkiiba 8 boqolkiiba 7 mararka qaarba aan waxba isbedelayn ugu dambeyntii xisbiga kulmiye wuxuu isu diyaarinayaa xisbi mucaarada oo waayeelnimo iyo xilkasnimo iyo lexjecel ay ku jirto mucaaradda xisbiga kulmiye waxay noqon doontaa sida goobuu isla qaatay iyo hoggaankii xisbiga oo madaxdooda ay joogtayba inuu noqdo xisbi wax dhisa ee aan noqon xisbi mucaaradadiisu mid wax dhimisa sidii horeba loogu yaqaanay maadaama higsiga iyo yoolka xisbiga kulmiye uu yahay qaran taabo gala oo ictiraaf hela oo horumar hela oo ummaddiisu ay la mid noqoto ummadaha horumar asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu